bannaanbax ballaaran oo ka dhacay deegaamada khaatumo sida Soomaaliya bannaanbaxan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulkaasi bannaanbaxyadan ayaa waxay ka kala dhaceen magaalooyinka Tukarraq Taleex Boocame Arbogays Sarmaayo Balle Cadbuuhoodle bannaanbaxan oo lagu muujinayo shucuurta dadkaasi inay ogol yihiin in midnimada Soomaaliya ay tahay muqaddas iyagoo beesha caalamka halkaasi fariin uga direen mas'uuliyiinta kala duwan ee bannaanbaxyadaasi ka hadlayay ugu horeyn waxa halkaasi bannaanbixi ka dhacay magaalada Tukarraq ayaa waxa dadweyne aad u fara badan kala hadlay goob fagaara taliyaha ciidamada xooga khaatumo of Soomaaliya oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay midnimada Soomaaliya geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaal iyo cuqaal fara badan kuna dheeraaday ahmiyadda ay leedahay midnimada Soomaaliya baynin baraka male birwayaan oo islaam ku badbaadiya oo waanu baranayo dadka naga dhijaa ayaanti ayaamal khayr ayaan ilaah ayaanti ayaamal khayr ayaan ilaah ururkan iyo shicibkan baa dawlad adag matala ururkan iyo shicibkan baa dawlad adag matala rabbi Soomaali weyn nabad ku soo dabaal badan ragu rulabatihin bilahal jilahal ragaan baqan batihin ragaan cadaw haydino caydiyatihin waxa cadayna haysa furintaad camirantiin Soomaaliya hada khaatumo hada inta bacdigeed waxaan leeyahay walaalayaal waa deerkaya aynu isognahay dad islaamaynu nahay dawladnimada iyo soomaalinimada intaan raadinaynay midnimada soomaaliyaynu raadinaynay waxaan balleerayaa madaxda sharafta leh dhammaan iyo xoogga ciidanka iyo dhammaan khaatumo isteed Soomaaliya baabuha balleerayaa kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga waxaan ilaahay uga baryayaa guul iyo sharaf inay isla hooliyaan dhammaantood saddex marayeedaan hurdaba seexan kari waayey labadii saloobaa ragiirisaanka kala goo soo noqoshada tashiidu suura gelaya adoo siday wax u jiraan sama ku soo laabo saawi kuma gale awgayo samcina qowlkayga sallallahu tawfiiq dhaqaaqa way sugayahay haataba guul waxaan halkan isugu nimid maanta inaynu ku muujino dareenkeenna iyo aragtideenna inaynu ku muujinayno isugu nimid halka kan waxaa jira bannaanbaxyo laga qabanqaabinayo maamulada gobollada Soomaaliyeedka laga qabanqaabinayo kaasoo ujeeddadoodu tahay inay ku khaldaan rayul caamka ku khaldaan horay baa digniina loo siiyey isimaa la hadlay cuqaal baa la hadashay odayaal baa la hadlay siyaasiyiin baa ka hadashay waxaa loogu baaqay dhowr jeer marar badan inay ku noqdeen guryahoodii oo inaga tagaan inay si nabadgelyaa kaga baxaan ayaa dhowr jeer loogu baaqay ilaahay kuma duwin haddaanay dambaynin annagu laakiin kuwii baryayay ma nihina waxaa lahay kuwii loo sameeyey wixii ay aqbali waayeen inaan magaca gobollada isteedka khaatumo iyo shacabkiisa codkiisa annaga ku hadlana waxaan halkan ugu sheeganaa beesha caalamka in aanan diyaar u ahayn kala go' Soomaaliyeed waa bees Soomaaliyeed inaanu diyaar u ahayn dadkeennu dhaqan waxaynu u lahay weligeedba inaynu Soomaali doono Dikari nolol S24 TV magaalada Xudun ee gobolka Sool.